Qormo iyo talo ku socota madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo uu hawada u soo mariyay taliyihii hore ee nabad sugidda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Qormadu waxa uu ciwaan uga dhigay madaxweyne dharbaaxo rag bay kugu dirtaa ee kaama dhiciso. Mudane madaxweyne, aqoonta aan ku leeyahay waxaan si buuxda u oran karaa inuu dhab ka yahay dareenka iyo khudbadaha kala duwan ee aad jeedisay. Waxaan hubaa inay run ka tahay caadifadaas. Marqaati ayaan u ahay muddaxileedkaadii koowaad in damac kasta lagu sheegay si aad tanaasul uga samayso qodobo taabanayay dhulka iyo badda Soomaaliya. Maantana kalsooni taas la mid ah baan ku qabaa inaadan saxiixaynin wax taabanaya gobonimada qaranka. Mudane madaxweyne, aqoonta kale aan ku leeyahay waxay tahay inaad si aad ah gaabis u ah go'aanadaadu jilicsan yihiin. Culayska khudbadahaaga iyo cagajiidka tallaabaqaadkaadana isma lahan. Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa dharbaaxo rag bay kugu dirtaa ee kaama celiso. Madaxweyne, hadallada aad ku khudbaysay hadallo ka culus oo la oran lahaa ma jirto. Waxaad ku dhawaaqday kelmado dagaal oo duulaan hubeysan soo dadejin karay. Laakiin nasiib darro diyaar garowgaasi kaama muuqdo. Itoobiya waxa u dhiman oo kaliya inay lugaha soo dhigto xeebaha Soomaaliya oo ciidan iyo cudud keensato. Intaan ogahay qorshahaasi waa u diyaarsan yahay. Wayna ku dhaqaaqayaan. Colka ka hortag buu ku qurux badan yahay. Mudane madaxweyne, waxaan hawada ku soo marinayaa tallaabooyinkan oo dhammaantood ka hortag ah. Itoobiya si buuxda xiriirka ugu jar. Sidaasina xiriirka ha u jarnaado ilaa ay ka noqonayso heshiiska aan dhaqangalka ahayn ee la gashay maamulka aan sharciga ahayn. 2. Ciidanka Itoobiya ee dalka jooga kuwooda AMISOM ka mid ah iyo kuwooda aan ka midka ahayn labaduba dalka ka saar. Muddo ay dalka uga baxaana u qabo. Haddii ay ka bixi waayaanna ha loo aqoonsado ciidan gumeysi ku jooga dalka. Muddadaasi loo qabtay inay dalka uga baxaan. Waxaad raadsataa dalkii buuxin lahaa goobaha ay ka baxaan. Wayna jiraan wadamo diyaar u ah inay booskaasi buuxiyaan. 3. Dowladda inay qaado olole diblomaasiyadeed oo dalalka Afrika ku soo wareego oo ka dhaadhiciyaan in midowga Afrika xarunteeda laga raro Addis Ababa bacdama ay ku xadgudubtay xeerarkii u degsanaa ururka. 4. In hawada Soomaaliya laga xiro duulimaadyada diyaaradaha laga leeyahay amaba ka diiwaan gashan dalka Itoobiya. 5. Dalka aan walaalaha nahay sida Turkiga, Eritrea iyo Masar waxaad la soo gashaa iskaashi difaac. Waxaadna dalka ka siisaa saldhigyo military si ay qayb uga noqdaan amniga gobolka amaba amniga badda cas iyo gacanka cadmeed. Mudane madaxweyne, waxaad isku hadlaysaa Rabbiga iyo ummadaada. Waxaad ogaataa awoodda aad leedahay inay ku filan yihiin difaaca dalka. Si sahal ah baad uga hortagi kartaa damaca guracan ee Itoobiya. Waase haddii aad isku tashato. Marna ha moodin taageero iyo xoog dibadda kaaga imaanayo inuu joojin karo damaca waalan ee Abiy Ahmed. Dunidu mar walba waxay oran doontaa xaaladda hala dejiyo. Xitaa marka ciidanka Itoobiya ay xeebaha Soomaaliya yimaadaan oo ay qabsadaan. Mudane madaxweyne, naxariista caalamka ha sugin. Hana ku tashanin ee waxaad sacabadaada ka buuxsan kartid iyo kaararka culculus ee gacantaada ku jira isticmaal oo difaac iyo duulaan ka dhigo. Mudane madaxweyne, marka gobonimada dalka lagu soo xadgudbo
wax qarsoomi oo muxaafad iyo mucaarad igaraal naqda mudana madaxweyne marka gobonimada dalka lagu soo xadgudbo waxaa qarsoomaya muxaafad iyo mucaarad sidaa awgeeda waxaa diyaar u nahay inaan ku garab galno cadowga dalkana aan tusno in dadka yaga midaysan yihiin waxaase qasab ah in la arko hogaamintaada oo leh karti ku ururisa awoodaha kala duwan ee ku dhex duugan dadka Soomaaliyeed. Fahad Yaasiin 17 Janaayo 2024